weli waxaan ku guda jirnaa magaalada Jacar aan joognaa haddana mataqaana waxaan waraysi dhinacyo badan taabanaa ka qaadi doonaa gudoomiyaha magaalada Jacar Ismaaciil Axmed Dhuxulow. هذا إسماعيل كسو دو برنامج كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام وحان مقالة جعريد أرتر دمان مرصدوه انتو دقينها دباتوين قود إيا كوا قارة اسكجرة وقت وكل هذا هاتو أيضا ودن كدولة حال هين هاتو أيضا هذا لبك قفلو شيئا عن لارو إلهي هاتو horta midaas waa muursadoo dhan maaragtay inta uu degan yahay dhibaatooyinkaas ka jira abaara ka jira shilal dheeraada ka jira cunno la'aan dad iyo dunyaha ka jira horta dhibaatooyinkaas waa muursadoo dhan waa kala gaarsiin inta uu degan yahay kulli dhamaanteed marka waxaan soo jeediyaa mataqaana warka afkaas hadda aan ku hadlaa af muursada waay waa mataqaana ka warqabid dhibaatada muursada 39 meel uu joogana mataqaana dhibaatadaas iska haysa midda gaar Jacar haddaan ka hadlo Jacar waxay u gaartay wada Jacar deegaankeedu waa deegaan weyn ma ahan yaani dadkii saad uga tagteen ma ahan leemanki mataqaana dad badan oo waxa idin kamid ah Jacar mataqaana u maleynaa sidii ay uga tageen iisay ku ogaayeen Jacar waa magaalo haddii dad leeyahana mataqaana gobol naqa karta haddii dadkeedu lixifyana mataqaana degmo qaadan marka sidaas daraadeed saad ku ogeedeen ma dad iyo dunyaba ka maahan deegaankeeduna waa weynaaday dhibaatooyinka haysta waxaa kamid ah iskuula ku yaala waxaa dhigta mataqaana ilmo oo ilaa 160 dhigta kuwa kale oo mataqaana fursad u weysanuna waa joogaan taasoo xaq dhaqaale mataqaana fursad ay ku weysan tahay sababtoo ah mataqaana dadka ilmaha maaragtay waxaa laga qaadaa lacag loo qadaro macallimiinta waafaqsan lacagta macallimiintu qaadatana ma xamili karaan ilmuhu dadka dan yartaa oo mataqaana ii sheeg dadka dayarta ilmahooda waxay la laabteen markii ay bixi waayeen cunugooda intii mataqaana $2 oo maartay wax ku baralaay ama $3 markay bixi waayeen wadi waayeen ilmihii waa la laabteen waxay dhaheen mataqaana annagu taagu ma hayno cid hadda kale dibireena lama arko marka dhibaatooyinka jira saasa hadda annaga qof kor naga saacido mataqaana wax nagu tartana maarag raggi hadda inta noogu yimid oo hadda ka hor noo yimidna يعني waxaad moodaa madaxa inay naga kaydeen marka dhammaan dadka ay qusayso mataqaana Jacar jooga dhamaantood waxaan horta codkoodii anoo ku hadlaa waxaan mataqaana waxaan leeyahay iskuulka horta in la badbaadiyo oo maaragtay hadda waa socdaa oo hadda 2 sano wadnay si waxaan ku wadnay mataqaana karti dheeraada horta badbaadin adinku idinka rabaa dhammaan hadaad ama si gaar ama si guud oo mursadanimo haddii aadan badbaadinana badbaadi ma maxaa yeelay macallimiinta lacagta la siiyo ma bixi karaan ilmihii waa bixi waaye sababtoo ah qofkii beerta u baxdaa waaba iska bixi lahayd haddii beeri been oo mataqaana jiilaal daran u yimid oo muddo badan mataqaana lagu soo jira kulayl haddana sanadka sasaantiisu aynan mataqaana soo degdegin dadkii niyo xumaa u timid waxbarasho maaha naftii badbaaliyiin taasi waa mahaas waxaan rabnaa horta oo idinka codsanaynaa dadkiina dibadda jira oo 39 ama sakhaas mataqaana dadka Jacar oo warqaba inaad mataqaana iskuulkaas badbaadisiin horta waa idinka codsanaynaa anoo afki Jacareed ku hadla iyo afki 39 labadaba tangaar male meesho caafimaad male oo maaragtay isbitaal male waxaan noo yimid ayaan hore gabar waxayna tiri isbitaal la idin dhisaa meeshii aan dhagax ku gurnay wax dib noogu soo noqdana waa weynay dalka iyo dadka iyo waxbarashada iyo caafimaadku markaan soo koobo dhamaantiin adinka u idin suga markaan saas leeyahay waxa idinka soo socota ayagu dadku waxay qabsan karaan dadku waxaad mataqaana ku beeshiin markay helaan waxay qabsan karaan ku qabsaaya iyo waxay ku daran karaan marka sidaas daraadii waan idin salaama dadkuna weydiin baahan yihiin hadda adinku u baahantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.